wafdiga ka socda midowga Yurub waxa hogaaminayay safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya Ambassador Michael Javon waxayna kulan saxaafadu dibajoog ka ahayd la qaateen madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud balse markii kulanku soo idaaday kadib waxa saxaafada si wada jir ula hadlay safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Ambassador Michael Javon oo ugu horeyn ka hadlay shir saxaafadeedka ayaa ku dhawaaqay in midowga Yurub uu kordhiyay taageerada uu Soomaaliya siiyo waxa uu tilmaamay in ay garab taagan yihiin Soomaaliya iyo dawladeedaba. waxaan halkan u joogaa waxa weeye inaan u sheego dawladda Soomaaliyeed madaxweynaha in midowga Yurub uu taageero hiil iyo hooba la garab taagan yahay dawladda iyo dadka Soomaaliyeedba lacagtan yari ee midowga Yurub ugu deeqday waa mid yar balse waxaanu aaminsanahay inay wax uun ka qaban doonto safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa inta ku daray in lacagta Soomaaliya ay ugu deeqeen loo adeegsan doono dhismaha dawlad wanaaga waxbarashada iyo ammaanka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u mahadcelin midowga Yurub kadib sheegay in dawladda Soomaaliya muddooyinkii dambe ay jeedinaysay baaqyo ku aadan in beesha caalamku ay wax ka bedesho sidii hore ay ula macaamili jirtay Soomaaliya dawladda Soomaaliya cusub waxay waayahan dambe oo dhan ay ka codsanaysaa caalamka in macaamilkii hore ee dawladda Soomaaliya iyo sidii loola macaamili jiray in wax laga bedelo oo ay caalamku toos ula macaamilo dawladda waa midda macnaha weyn sameynayso marka laga yimaado lacagta oo runtii lacag aad u badan oo waxgal ah iyo qaybaha oo hadda ka dhawaajiyay oo muxuu ahaay waxtarka ay u leedahay lacagtaasi oo baahideedana ay aad Soomaaliya ugu badan tahay laakiin waxa muhiimka waxa waaye macaamilka cusub iyo qaabka cusub ee dawladda Soomaaliya loola macaamili doono hadda wixii ka dambeeyay iyo lacagahaasi sida loo dhaqan gelinayo mashaariicda maxaan ku yiraahdaa lagu fulin doono hadii aan yiraahdo waxa aad iyo aad muhiim ku ah waa midaas waana u mahad celinaynaa aad iyo aad muxuu ahaay midowga Yurub oo weligoodba doorka ay Soomaaliya runtii ka qaataan ay ahayd mid kaalmadoodu ay aad iyo aad ay u muuqan jirtay ayna aad u cadeeyday 20 sano la soo dhaafay haddana weli ayadoona ognahay weliba ciriiri dhaqaale iyo waxyaabo badan caalamku maanta inay ka jiraan inay deeqdii ay sii kordhiyaan iyo inay bedelaan sidii maxaan ku yiraahdaa weliba deeqdu ay loo bixinayay waa arin ididiilo leh waana ka mahad celinaynaa waa wado cusub oo hadda bilaabatay waxaan rajaynaynaa deeqdii hore la bixin jiray waxtarkii ummadda u lahayday mid ka weyn oo ka duwan markaan inay u yeelato hadii aan la yiraahdo midowga Yurub xilliyadii ugu dambeeyay wuxuu si aad ugu warhayay arrimaha Soomaaliya waxaana jirta wufuud kala duwan oo xilliyadii la soo dhaafay soo booqatay Soomaaliya waxayna ku soo aadaysaa xilli isbedel cusub Soomaaliya uu ka hana qaaday kordhinta maanta ay ku dhawaaqeen oo ah in ay kordhiyeen deeqihii ay siin jireen Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Xaaji telefishinka qaranka Soomaaliya magaalada Muqdisho